waxaad la imanaysaa suuraddii ku xigtay faatixada oo ay fiican tahay inaad suurad dhammaystiran ha koobnaato laakiin suurad dhammaystiran ay noqoto ayaa wanaagsan intaa markaad la timaado waxaad samaynaysaa rukuucdii ruknigii rukuucda ayaad la imanaysaa gacmahana kor baad u qaadaysaa sidii takbiiratu ihraamka oo kale allahu akbar saasay markaa rukuucdii noqonaysaa sidaas dhabarkaaga waad simaysaa madaxaagu wuxuu la sinmayaa dhabarkaaga labadaada gacmood iyaga oo markaa fidsan ayaad ku qabanaysaa labadaada jilib saasaad ugu qabanaysaa waxaad samaynaysaa faraha in yar ayaad saa u kala kaxaynaysaa sidoo kale xusulladaada waad ka ilaalinaysaa dhinaca ku dhajiso oo maaragtay waxa weeyaan saas ayaad uga fogeynaysaa taa markaad la timaadid waxaad akhriyaysaa subxaana rabbiya alaclaa wabixamdih 3 goor intaa markaad la timaadid iyo adkaartii kale soo aroortayna tii aad doonto ayaad ka akhrisan kartaa